daawadayaal waa ku mahadsantihiin Halabuur Media soo dhawaada waxa caawa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ku soo bandhigteen walaasheena Najmo oo buug la magac baxay buugaasi oo aad u jeedaan aan filaya haddii aragtaan isla markaasi aad qof walba oo arka oo isla markaasi milicsan doono isla markaasina ay caawa ku soo bandhigtay magaalada Gaalkacyo waxaana sidoo kale aan ku martiqaadnay waxa weeye Najmo ku soo dhawaw Halabuur Media maxsan walaal waan dhawahay waan u mahadcelinay dhammaan hawlwadeennada Halabuur Media magaalada Gaalkacyo caawa waxa ku soo bandhigtay buuggan ujeedadiisa iyo sababihi aad u soo bandhigtay iyo xilliga aad dareentay inaad halabuur leedahay xogaa warbixin kooban naga sii walaalka aad mahadsan tahay horta marka horeysa buuggan magaciisa waxa la yiraahdaa Fursada Wadaniga Soomaaliyeed waa buug wadaniya gabadh wadaniyada Soomaaliyeedna ay qortay buuggan ma aha halabuurkayga ugu horeeyay mana aha buuggii ugu horeeyay aan ku ogaaday halabuurkayga barnaamijyo badan oo aan qabtay baa jirta oo la yiraahdo Fursada Wadaniga oo aan ka sameeyay buug aan ka qoray barnaamijku markii hore ahaa markii dambana si aan maxaan ku raadayay halabuurtad taariikhda goortay iyo sababihi kugu dhaliyay inaad wadaniga ama magaca buuggan saan ku sheegay walaalo waxaan ka qoray ama dhigaal aan ka sameeyay barnaamij aan gobolada Soomaaliyeed ku akhrin jiray ama aan ku wacyigelin jiray oo la yiraahdo Fursada Wadaniga shaqadaas oo magaceeda guud marka la isku keenan la yiraahdo tabliiqaynta wadaniga hadda aragtay diinta islaamka oo tabliiq loo sameeyo marka waxa weeyaan wadaniyada ayaa loo tabliiqaynayay marka walaalo buuggan taariikhda rasmiga qoray waxa weeyaan hal sano oo dhameystiran baan qorayay buuggan barnaamij buu ku mataansan yahay Fursada Wadaniga la yiraahdo markii barnaamijkaasi bilowday beegan 2 bisha 2018 2 bisha 2018 waxaan ku soo bandhigay dalka Soomaaliyeed Muqdisho sanadka dhameyska tiran baan qorayay buuggan waxaan sababtii u horeysay oo qoray waxa weeyaan buuggan waxaan ku koobay oo ku qeexay markii horeysa wadaniyada oo runtii ummadda Soomaaliyeed aad uga jahwareersan wadaniyada waxa la yiraahdo iyo waxa ay wadaniyadu tahay iyo qofka wadaniga nooca uu yahay markii xigtana waxaan ku qeexay waxa la yiraahdo qofka muwaadinka Soomaaliyeed inta fursada haddana taa dhigeeda dalkana looma adeego dadkana looma adeego istaagi karo marka sidoo kale waxaad sheegtay inaad magaalooyin kale aad ku soo bandhigi doontid magaalooyinkaasi waxa inoo sheegtay inay ugu soo horeyso magaalada Garowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland magaalooyin kale ma damacsan tahay oo aad ku soo bandhigtid buuggan oo aad rajaynayso mustaqbalka dhow iyo mid ka fog baynta walaalka aad bad mahadsan tahay waan is leeyahay insha Allah taala waxa uu horeysay Garowe waxaana jeclahay inay ku xigi doonto magaalo la yiraahdo xarunta gobolka Cayn ama waxa la yiraahdo xubinta gobolka Togdheer magaalada Buuhoolde baa laga yaabaa inaan ku soo bandhigo sidoo kale waxaan u maleynayaa oo qorshahaygu ku jirto inay suurto gali doonto moogi laakiin waxa qorshahaygu ku jirto inaan Boosaaso ku soo bandhigo iyo Qardho hadda ii suurto gasho sidoo kale sanadkan gudihiisa waxaan rajaynayaa buugga dalka inaan ka saaro hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qadaro meesha ugu sokeysay aan rajaynayaa inaan ku soo bandhigo waxa weeyaan ama Gaarisa ama Kenya oo runtii dad codsi aad u badan oo iga yimaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan geeyigaas insha Allah ta'aala inaan gaarsiiyo fariinta wadaniyada hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ii suurto geliyo marka insha Allah ta'aala buugga dalkana waa lagu wada bandhigayaa dalka dibaddana waa looga saarayaayo ummadda Soomaaliyeed ee meelaha ku kala qoban ee ku kala dhibaataysan wadaniyada iyo fadhiga ka gaaraya waa maxsan tahay ugu dambeyntii dadka ka daawanaya Halabuur Media maxaad u soo jeedin lahayd walaalka aad mahadsan tahay waxaan u soo jeedinayaa wadaniyadu ma ahan hadal wadaniyadu ma ahan kaliya in la iska qiroodo wadaniyadu waxay u baahan tahay ficil waxa loo baahan yahay dadka in loo shaqeeyo in hadalka aan ka gudubno oo aan dadka taariikhda iyo dadka ficilka noqono adduunku waxa kala noogama hormarin adduunka xikmad waan kula tartami karnaa adduunka aqal waan kula tartami karnaa laakiin adduunka ficilku gulma tartami karno waayo dad waxaan nahay hadalkoodu badan yahay hawshooduna yar tahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed waa xilligaynu kici lahayn waa xilligaynu shaqayn lahayn waa xilligaynu wax bedeli lahayn in la dalka iyo dadkaba wax laga bedelo oo dhibaatada iyo maxaan ku raadayay xasiloonada dalka jirta dhalinyaradu hormuud u noqdaan dhalinyarada wax ka bedelaan